waxa baahi weyn loo qabaa in la helo dugsiyo qur'aan oo aan dariiqa ku eelin dhul waqaf ah oo loo gaday lagu dhisahayo dhismo fiican laga dhisahayo si waxa weeyaan qur'aanka kor loogu qaado si waxa weeyaan tayadii qur'aanka loo ilaaliyo maqaam wanaagsan iyo meel wanaagsan in lagu barto kalaamka ilaahay alxamdulillaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah wacalaa aalihi wa saxbihi ajmaciin maantay oo taariikhdu ay tahay bisha shawaal 20,447 oo waafaqsan 9-ka bisha afraad 2026 alxamdulillaah waxaan joognaa dhismihii maxadka sheekhayn ee magaalada gaalkacyo ee loogu talagalay madaarista qur'aanka dhismuhu wuxuu jaar la yahay masjidkii inoo dhammaaday hal sano ka hor masjidu sheekhayn dhismuhu wuxuu marahayaa meesha wanaagsan oo aad arkaysaan qaybtii hoose waa laga soo baxay waa la shubay dabaqii labaad baa socda ilaahay subxaanahu wa tacaala ha barakeeyo waa dhismo aad iyo aad u baaxad weyn oo waqaf ah dhul iyo dhismaba loogu talagalay macaahidda diiniga ah culumta sharciga ah iyo xifdiga qur'aanka kariimka ilaahay idankiisa dad aad u fara badan ayuu qaadayaa machadku hadda wuxuu qur'aanka ku dhigaa meel ku meel gaar ah oo uusan lahayn walaalihii bilaabay aasaaska ilaa halka aan marayna nala socday iyo walaalaha cusubba waxaan ugu baaqaynaa inay ka qayb qaataan maanta dhismaha macaahidda iyo madaarista diiniga ah way ka muhiimsan yihiin marka la fiiriyo masaajid fara badan oo waxa weeyaan isku muuqmuuqato isku dhowdhow oo wax ku tukada ay yar yihiin oo dadku waxa weeyaan baahidoodii ka tira badatay waxa baahi weyn loo qabaa in la helo dugsiyo qur'aan oo aan dariiqa ku eelin dhul waqaf ah oo loo gaday lagu dhisahayo dhismo fiican laga dhisahayo si waxa weeyaan qur'aanka kor loogu qaado si waxa weeyaan tayadii qur'aanka loo ilaaliyo maqaam wanaagsan iyo meel wanaagsan in lagu barto kalaamka ilaahay waa wax aad iyo aad bulshada hadda ugu soo kordhahaya oo dadku ay fahmayaan waxaan ugu baaqaynaa walaalihii khayrka jeclaa dal iyo dibadba halkaas khayrku marahaya qaybtii labaad baan ku jirnaa ha laga qayb qaato lambarada masjidku macadku leeyahay macadu sheekhayn baa ku qoran shaashada ayaad ka arkaysaan intii hore ula baxday ilaahay subxaanahu wa tacaala hu aqbalo inta dambana waxa weeyaan ilaahay subxaanahu wa tacaala ha waafajiyo waa meeshii uu ka soo baxaya waladun saalixun yadcuu lah walad baari ah meeshii lagu tarbiyeynayo laga soo saarahayay waa meesha cilmiga iyo khayrka lagu barahayo waa sadaqadii jaariyada ahayd ee qofka la raba naftiisa iyo waalidkiisa iyo ahalkiisaba inuu u bixiyo waa meeshii lagu baranayo cilmun yuntafacu bihi cilmigii lagu intifaacsanayay saddexdiiba way ku kulmahayaan marka walaalayaal aynu ka qayb qaadanno maal la bixiyo sadaqa maal wax sadaqa la bixiyo maal ma nuqsaamiso nabiga inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam qofku tii Allah iskaga imaanaysa asagoo is oranaya khayrka gaar ayaa waxa weeyaan saacad kasta ay ku imaan kartaa wixii khayr oo marka aad awoodid oo aad la bixi kartid bariya saad dambe ha u dib dhigan maanta ka qayb qaado wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad